Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guys meel kastoo aad joogtaan iyo waqti walbo ay idin tahay waxaan idin leenahay waqti ha idin wanaagsanaado caawa iyo muuqaal cusub waxaa dhankayga garab fadhiyo saaxiibkayga maxamed yaano welcome to bashka show waa mahadsantaa saaxiib waana ku dhowahay channelkaaga marka caawa barnaamijka aa wadno wuxuu ku saabsan yahay waxay tahay waa su-aashaas oo aan rabo inaan ku weydiiyo dadkan kalena shacabkeena waxaa igu weydiini ani shacab ma weydiis maxaa maya eekana way ku jiraan adna way kugu jiraan Haye, adna waa ku jirta eekana way ku jiraan su-aashaas isweydiis xoogeed yaa la weydiinaa marka su-aashaas Ya? xoogeed yaa la weydiinaa su-aashaas yaa ku socotaa adaa ku weydiinaa dadka dhan way ku socotaa waa barnaamijkan waxaa waay macnaa dood waay dood maxaa la dood wadaag dood wadaag waa dood aawe lix qof isdeeq baa laga hariyo aan leebi soo qabataa macnaha horta ana kale waay introduction adi bilawga leewaay tamaam haye ku soco haddii meel life weyn la wada ahaan lahaa teleefon la wada hadli lahaa xitaa waa doodi lahaa okay maalmaan ay wareysaa su-aashan iga tartiiba marka su-aasha marka meesha taalaa waxay tahay waa ku weydiinaya bas noo fur horta waxay ku saabsan tahay su-aasha waxay ku saabsan tahay su-aasha waxay tahay horta labada qof soomaalida in ka hadlaya macnaha raggaan is dumar soomaalida annaga dhan rag iyo dumar inkastoo haddana soomaalideena macnaha horta way qaldan yihin ma dhahay yani soomaalida dad khaldan waay ma dhahay dad xun waay ma dhahay yani laakiin dhalinyaraan nahay oo waxyaalo badan waa arkay sooma wax dhexdan aa ka arki leeyo ani waxaan dadka weydiinayo aad iyo aad su-aasha meesha taalaa waxay tahay laba qof soomaali markay isla socoto maxay u dhahaan wiilka muxuu u dhahaa haddii gabadha marka la hadlaayo labadaba wiilka bis maaha ama gabadha ha noqoto ama wiilka ha noqoto maxaa loo dhahaa macnaha qofka maanta dhan mala hadli kariyo maanta dhan haddaa la hadlo waa ka xiisa dhaca su-aashaasaa rabaa su-aashaas jawaabteeda la rabaa sababto qofkan waa isjecesyihiin sax qofka maanta dhan koolo saarnana miya qofkan waa isjecesyihiin xiriiraan iga dhexeeya hadda waxaa maqlay eeda lagu leeyahay horta soomaalida dhan saas ma aha kuma lihi soomaalida dhan saas sameyso laakiin boqolkiiba 70 saas way sameeyaan boqolkiiba 70 saas way soddon fiican miya marka aaminsan ha soddon fiican soddon ka fiican ma ogin soddon igu darsa marka ani adaa kugu darsanaa okay todobaatanka u diinayna su-aashaas okay 70ka macnaa soddonka kulli bay ku wada jiraan su-aas infahmino midda meesha taalaa waxay tahay adi ahaantaada maxaa aaminsan tahay macnaha weligaa ma dhahday macnaha adaa ku weydiinaa saaxiibtaada maanta hadaad hadlaysid weligaada ma dhaha inta lagu weydiiyo su-aal lagu dhehniyo saaxiibtaada macnaha kusoo waceyso mala hadli kartaa ilaa imeeqa daqiiqa la hadli kartaa saaxiibtaada aniga wallaahi waqtiga jaaniska ahaan markaas u fiirina haddaa waqti fiican jaanis u hay waa la hadlaa laakiin haddii arrimo kale iska saaran yihiina midaa kuu sheega waa yareynaa waqtiga okay maanta kulanteen beri inaa kula kulmaa rabaa ay ku dhahan mala kulmi kartaa maantaa kulana beritan inaa kulana rabnaa idhee ay u adagtaa taas mana kulmi kara sababaad ula kulmaynin maanta fiiriyaa way ku aragtay waxaa beri ula kulmi lahaa maanta ula kulmee okay maanta iyo beri isku midne laba maalin kala tahay ay maanta wax ula kulantay already maanta way ku dhaaftay sooma beri waa maalin cusub waa maalin kale okay maanta waxaa ku kulanay igu sheegayso beri igu sheegay haddana waxaa kusoo kordhi kara kool miyaa laga koolka naftirkiisa maxaa laga yaabaa inay muhiim u tahay inay life to life inay ku arag taas wallaahi caqabad kale waa aydan taas ma aysan caqabad ku tagsi ila qofkan fiiri wax waxaa jira oo lahay berina jaanis helaa ma sheegi karito dee berit jaamacada aadi karaa waa mashquuli karaa hal mid marka imtixaanaada imaan karo hal mid ku sheegaa qofka bini'aadanka waxa ugu muhiimsan ugu qiimaha badan asiin kartid maxaa farxad inaan siiyo qof bini'aadan maya waa ogahay waqti inaan siiyo taas iskuma haysan ada xataa aad beri waa mashquuli karaa dhahay soo maha qof dhan aad jeceshahay oo asla socotiin hadda maxaa iga dhaadhici rabtaa maalintaas dhan subaxiisa usoo kacday ilaa iyo habeenkii macnaha xitaa 20 daqiiqo inaad soo aragtid oo la kulantid ma awoodid mi 20 daqiiq ilaahay ha ka dhiga 20 daqiiqo inkastoo qofka markaa jecel waqti badan inaad la fadhiisid kool ma saaraa mise u tagaa la kulan waa caadi face to face u tagaa ay ku dhacdo bashka miya ahaa maalin walba mise hal maalin war ilaahay waa dab xitaa maalin walba waqtigaas inaa kulanaan rabaa yani arrimo kala yeelan karaa taas mise liskuma haysto arrimo waa yeelan kartaa adoo maalintaas arrimo yeelatay kasoo qaad iskuulla dhigataa sax iskuulka meeqa saacaday hadday ugu dhacdo ka war marag inaan sameeyo isku dayo inaan daqiiqadaas ay balmis inaan aan la kulna aado haddii ay dhankeeda dibdhac ka yimaado ka war maxaa samayn karaa an marag maxay ila soo gudbanaan karo dibdhac dhankeeda ka yimaado oo sidee oo macnaha hoyga ama houska aan kulmi lahayn
horta midaa jaamac jir iyo Okay, midaa kuu sheegay. familka waa isku badan yihiin maanta okay ka wareej camal midaa kuu sheegaa macnaha yaa ku dhehe ani inaan kula kulmaa raba yaa ku dhehe ayada ay dhehayso eedaa ku dhahday kula kulmaa raba soma okay eeda already way ogtahay sooma maxay kuu dhahday inaan kula kulmaa raba maxay kuu dhahday kalsooni waa wax eeda ee sii qorshaysatay sooma balance dadka haddii eeda mogta waxaan qof biniaadanka adi waqti waa waqtiga fasaxta waa taqaanaa waqtigii oo la kulmi kartid saaxiibtada sax okay koolka waxaa iga fiican marka inaad kulanka aqaata ay fiican maya kool kuma diidanin kulanna kuma diidanin su-aasha meesha taallaa waxay tahay koolka naftirkiisa waxaa lagu leeyahay mataqaanaa maanta oo dhan ani mala hadli kari saaxiibkeyga ama saaxiibteeda qofkan waa saaxiibta sax waay dee sax waay maxaad ula hadli karin maanta oo dhan waxaa ula hadli karin aniga u soo kaco ilaa iyo markabkii kool ma saarnaan karo sabab maxaa qabata ama maxaa kaa hor istaagaya koolka dabcan waxaa igu istaagi kara dee mararka qaar waxaa laga yaabaa qofta aa wada sheekeysanaysaan soo hadalka u socdo waxaa laga yaabaa xataa hadalkii aa wadeen inuu nin kala dhumaa laga yaabaa taas way dhacdaa sax way dhacdaa muxuu waa lagu caajisa telefonka okay so qof dhan aad jeceshahay oo aad la socotid maxaa keenayo inaad ka caajisid waxaa keenaa dabcan dee focuska markaas focuska aa saaran tihiin oo labadiin aa ku wada hadlaysiin waxaa laga yaabaa in uu qaato kasoo qaad focuskaas aa wada hadlaysiin 12 daqiiqo 11 daqiiqo inuu qaata laga yaabaa aa kusoo wada dhamaysaan hadalkiina okay focuska doo xirmo wax kale meesha lagu hadla mooyaane ila danta focuskaas aa maantas inaa ka wada hadalno midaan kuu sheegaa marka waa isjeceshiin sax waxaa dhahday focuska okay kasoo qaad madaxa guura ka sheekaysanaysa ya okay guurki macnaha waxaa qorshihii guurka ama guriga degi leedeen ama nolosha ku noolaadeen nolosha aa gali leedeen aa ku noolaan marxaladda aa gali leedeen wixii adi aa ka bada hadasheen sax way soo dhamaatay hadalkanaas ma ku eegaya may wax kalaa jira dee okay se marka wax kale hadduu jiro maxaa u dhahay marka waa ku caajisa caajis maxaa keenay kasoo fiiri kala saar markii qofka ay heshaan oo aad hal meel ku wada nooshihiin ama labaan aad tihiin oo fahansana brother waxaa ku dhehe focuskena maxaa waaye hal topic soo qaadanina hal waxaa soo qaadanina ani koolkaas uu adiga kuu sheegay adi wuxuu kuu fududiya koolkaas marka inaa saarnaad aan hadalkii waa ka degi intaa kadib ma socon kara mugtaa koolka wax ugu cuslaado ama dee ugu culus ii sheeg hal fay qofkii waxaa dhahday topica focus garaynayna okay topica aa focus garaynaysiin maxaa ama waxaa dhahday waxaa ka wada hadlayna sax waxaa ka wada hadlaysiin waxaa laga yaabaa qorshaha guurkiina aa ka wada hadlaysiin maanta dhan ma guura ka wada sheekaysanaysiin waa maya dabcan guurkii wuu dhamaa qorshaha waa dhamaaday macnaha okay topic lagu daro waxaa nafsadaasi xaaladii ama waxaa kartaa fiiri abaayo macnaha saani jirto saan marxaladaha waqtigaasi ilaahay waxna siiyo saan sabarka badi inta dhac waama gabadhii waa qanacsan sax kadib maxaa la rabaa cajiska maxaa keenaya ila kaas waa ka wada hadasheen sooma focuses meesha ku xiran kadibna feeska in loo gudbo waa hadal kale waa hadal kale u gudubteen waa halkaas okay waa hadal kale u gudubteen sax hadda waxaa dhahday waa hadal kale u gudbeynaa kow markaa ku weydiiso su-aasha maxay ku dhahdaan hal focus aa jira ku dhahay hadoo focus dhamaado waa kala caajisina okay ayoo ogtahay focuskaas aa ku jirta ayada inay isaarta laga yaabaa dee dhankeeda wax kale ka imaada laga yaabaa oo dee arrimo kale ama wax isheegaasi kastara wax xaggeeda ka yimaada laga yaabaa inay la wadaagto wixii aan igu sii socdaan sidaas oo kula sii qabsado waa laga yaabaa laakiin ani focuska aabato hadda ka wada hadalno ugu dambeyn habeenka ku wacnaado ama maalin wanaagsan aan ku kala tagnaa lacala gabadhii haddaysan wax haynin aysan haynin wax ay kuu sheegto adiga macnaha focuskan wuxuu ahaa waa arrintaas ina kala hadashid haddii ku dhamaado wacalaykum salaam waxaa laga yaabaa xitaa focuskaas inuu 20 daqiiqa qaato waxaa ku leedahay miyaa marka abaaya miyaa ahaa macnaha habeenkaa ku wacnaado markaasoo dhameynaa ka wadaa barnaamijkan aan ka wada hadlan focuskeen bis okay eedii hadday u baahan tahay gabadhi inaad la hadashid waqti la qaadatid هذا شيء كيس بليز أصحاب الجنال كنا قد داونيس فضلا هدي حتى داونيس جنال كان فضلا سبسكرايب لايك شير كومنت عاو أرنت أكهر لينو وكي جد سنتهاي وحيابي أكسب بديجي جن جنال كا أرنت ما أرن حساسية له طبعا حقيقنا ويكسو وريقتي وحوديننا لينكينا أو داوي هذا داونا مقالك وحي رأي هيسين كومنت نوريوا مقالكنا قصة عنينا ودم بنتي هذا بنكاية كل مكان صارت قف هذه يانا مركا عايسة بس مكون عرفت عايسة مكون مرة مكون عرفت قف كل صارتي اوكي امسح لك التقول انا قرالك كولك ودعم اوكي كل عادي اوكي كل عادي مركا قفت هذا صارته ما لقي يوم يا اصحاب كلا اني كسو وعن اما تنكايستان اما
ku dhaado inaad dan yeelatid okay miyaa kuu sheega marka dan markay isoo gasho iyo caajis kala laba tan ma ogtahay ano iyada la hadlaayo waqti u haayo iyada aan la sheekeysanayo oo macnaha ani aad dareensiinayo muhiimadeeda ani akaleya iyada aad dareensiinayo waqti aan siinayo maarag haddii dan isoo gasho iyada way dareemi kartaa dan isoo gasho sax waxay ku dareemay waa halahan oo dhan waqti la qaadanayo intaasoo saacadood dumar waa iska rabtaa hadalkii waqti ma diidani sax macnaha intaan oo dhan la hadlaayay in oo ku filan oo intaasoo ku horta kuma filno waqti ilaan qofka uu ku jeclay waqti horta ma u go'o sax maanta dana isoo gashay anoo halahaas dhan soo hadlaya dana isoo gashay macnaha waxaa dhihi karaa halahaas iyo halaha waqtigaas baby miya ahaa waqtigaas intaa ka hadlin waa daashay markee koolka waqtigii loogu talagalay waa kasoo dib dhacay mogtahay waa soo hormarsiisay waa maxsalameertaada tiida ta ana kaga jawaabay lamid tahay tan baraa maya lamid ma aha adi waxay dhahday topiga fiiriya isku mid minin adi waxaa dhahday topiga gabadha u wacay focuskii u wacday macnaha waxaa ka caajisa ani sheeka mu haya aniga waxaa ku dhahay toobigii aa u galay maanta kasoo qaad waxaa laga yaabaa inaa wax kala hadla sooma arrinta aa kala hadlay xitaa haddii ani aa u waday aa dhameeyo meesha ani waa la hadlaa kaftan macnaa xaaladeeda aa wanaagsan karaa waxa kusoo kordhay waxay u baahan tahay sida dareemayso qaabkay rabto waxay rabto inay gaarto taas haddii laga soo tago meesha taalna waxay tahay labada qof markay isla socdaan sababta loo leeyahay maxay tahay qofkaan haddaa la kulmo marar badan ama haddaa maanta o dhan la hadlo waa ka xiisa dhaca ani aydo iska xiisa dhaceena saas darteed markaa inaa isla hadalno ma aha ama inaa kulanno ma aha sababta loo dhaha maxay tahay xiisa dhaca maxaa keena war qofka biniaadanka meeshii la rab inaa mar walba hamigiina meeshii la rab inuu maala maanta ciise iyo xumbo bahamara dhacaan maqlno ciise iyo xumbo bahamara dhacaan marka jecel miyaa marka taas jecel miyaa qofkaan 10 saacadood masaarnay karta muddo qabli 10 saacadood ma kugu heystaa macnaha waxaa kugu heystaa waxay tahay xiisahaasa kugu heystaa ani jecel iyo xiise maxaa isku keenay oo isku imaan karaan asaas waa he maxaa keenaa marka waa xiisa dhaca qofka ma la hadli kari haddaa la hadlo waa ka xiisa dhaca oo hadalkii ay ka dhamaanayo taas horta waa su-aal isweydiin okay su-aasha midda kale waxaa u deenaynaa marka midda kale qofka markaa la ku kulantid macnaha qofka haddaa mar walba la kulmo waa ka xiisa dhacan iyo ano waa ka xiisa dhaceena labadeena xiisa ma yeelna meesha maxay istustaan idinka jecel ma bayaane waxaa la istusada in la isxiiseynayo hadhow haddaa maalmo kaa aamusnaado intaa kaa aamusnaanay kaaga soo xiisaya kusugan kusoo xiisaya asalaamu calaykum baby seetahay macnaa marka kuusoo xiisana ka hadlaya laakiin meesha jecel hay kulankiyaa noqotay marka anuu jigaaga u xiisa lee kuu imaana yaa ka mac taas jecelkeeda taas yaa ka mac waxa ka maca jecel ka socdo waxa ka maca waxay tahay ana jecelkiisa kusoo marmay weli kilo una kusoo maray isoo marana asxaabta ku xiran janaalka youtube-ka bashka show meel kastoo aad joogtaan iyo waqti walba idin tahay runtii waa daawateen muuqaalka caawa iyo dooda halkan ka dhacday runtii dooda in ay sii socoto aadaa u jecleen balse intaasaa ugu talagalnay qaybta dambe insha allah waa idin soo gudbin doonaa xaaladashimida alna eega ugu dambeynta dhihi lahaa waxay tahay horta dad soomaaliyaan nahay dhalinyaro soomaaliyaan nahay meeshaan horta doodan anaka uma soo galin inaa anaka isxagano iscunno meesha waxaa rabnaa meesha waxa taalantaa waxay tahay anaka ra'yigaa keena sax haddii wax naga maqan yihiin inuu soo kordhiyo taasaa qaladeen dhahdaan taasaa qaladeen ama taasaa saxdeen inayna dhahaan marka laakiin ugu qof wax kala wax masaxay ayaga naftirkooda inay macnaha nagala qayb qaataan inay noo sheegaan ay dhahaan macnaha arrintaas ama qalad waay ama sax waay arrinta xiisa inta noo reeba marka commentiga hoose ayagana wixii dhabaanna inoo soo sheegi karaan macnaha xiisa qalad miya mise sax in la dhaho qofka aad jeclahay qof aad isla socotiin aad jeceshihiin ma mudan yahay inaa isdhaadiin macnaha haddaa isla soconno haddii aa macnaha wada sheekeysano oo teleefon maanta dhan ka wada hadalno waa ka xiisa dhaca qofkaas waa kala xiisa dhacayna ama haddaa kulanno kulankeena u bato waa kala xiisa dhacayna macnaha su-aashaas su-aal sax miya ayaa ka warsuginaa saxi qalad waxay tahay shacabkeena marka u deenaynaa marka waxaan dhihi lahaa nagu caabiya macnaha waxaan dhihi lahaa nagu caabiya kasteedista waa kista waa subscribe ama dadka dhan subscribe dhaan kista u bixinayna okay kista nagu caawiya guud ahaan muuqaalka halkaasa kusoo gabagabeynaynaa muuqaalka xiga insha allah anagoo caafimaad qabno anagoo isjecel ilaahay dib anoo kulansi idinkoo nagu xiran ilaahay dib anoo